anigu wax badan oran mayo waa laga hadlay duqa magaalada iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa ka hadlay qaabka farsamo ama technique ee wadada tan u ah baalmar baa la yiraahdaa halbowlaha in dekada Boosaaso ay noqoto mid la tartami karta dekadaha adduunku maanta waa tartan dekada Boosaaso ama Boosaaso meeshay dhacdaa waa meel Ilaahay nasiib gaar u siiyay dunida waxa isku xira kanaalka Suez badda cas ilaa iyo bariga fog magaalada Boosaaso waxay ka dhowdahay magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo tusaale ahaan marka xamuulku ka dega magaalada Boosaaso baydhabo iyo koonfurta Ethiopia waxay ku gaari karaan 2 maalmood halkaas waxa sabab u ah dhawaanshaha ay uga dhowdahay dariiqa khadka ganacsiga caalamku maro tan kale Boosaaso waxay u dhowdahay dekad iminka dunida caanka ah oo salala la yiraahdo oo adduunku waxa weeye istiraatiijiyadda ganacsiga 20 sano ama 30 sano soo socda qayb ku yeelan doonta dunidu waxay u guurtay bariga fog farsamada iyo teknoolajiyadu waxay u guurtay bariga fog ganacsiga caalamku wuxuu inta badan ka jira bariga fogna waxa weeye waa meel qarniga 12aad noqotay meesha ugu horumarsan caalamka Mareykanka iyo Yurubna warshadooda waxay ka dhiseen China iyo wadamada bariga fog ku yaal sida Korea oo kale mobilada aad sidataan dhamaantood waxa lagu soo sameeyay bariga fog haday aan lahayn kuwa ugu qaalisan iyo haday aan lahayn kuwa ugu raqiisan taasina waxa astaan u tahay in ganacsigu adduunku uu guurayo bariga fog iyo Aasiya inta markaan ka gudbo mashruucan waxa noogu deeqday dawladda Talyaaniga ka dawlad ahaan madaxweynaha iyo wasiirka dekadaha Soomaalidu qofka dhaliishiisa sheegta waxa laga yaabaa dawladda in wax badan laga sheego laakiin waxaanu ku kalsoonahay wixii aanu qabanay inay dadku ogaan doonaan Maxamed Siyaad Barre xilligii aan ardayga ahaa jaamacadda dhiganayay dadku wax badan bay ka sheegi jireen wax badan bay maagi jireen laakiin markuu tagay waad garan kartaa Soomaaliya halkay taal afweyne dictator kaligi taliye waxa soo dhan waa la ilaaway waxa yimid wax ka sii daran inta waxaan uga dan leeyahay inaanu dadka u sheegno sida dawladdu wax ugu qabatay gaar ahaan barnaamijkan waayo warshada kaliya ay hasha kaliya ay reer Puntland maalaan waa dekadan iyo wadadaas waa mashruuc dawladda Talyaanigu hore inoogu fulisay bal ka soo qaada hadaanay Puntland ahaan lahayn wadadaas iyo dekadaas sidee baynu ahaan lahayn xagee joogi lahayn xagees ku noolaan lahayn taas waxaan uga dan leeyahay qof kasto bini'aadmi wax buu qabtaa qof kasto bini'aadmina daliil buu leeyahay qof kasto bini'aadmina amaan buu leeyahay mashruuca kan uu soo socday dhamaystirkiisa waxa ku guuleystay in wadadaas ay laami noqoto Xasan Cabdalla duqa magaalada laakiin waxa jiray maayarra kale oo ka horeeyay oo la soo janqaada qofka bini'aadmiga waa la bilaabaa waxa qofba qof ayuu u dhiibaa nolosha iyo horumarkuna waa isu dhiibid musharaxiinta qaarkood waxay ka hadlaan isbedel waxa la yiraahdo isbedel macnihiisu ma ahan in wax walba sagxada laga soo bilaabo in jabhadii USC markay magaalada Muqdisho qabsatay waa la ogay sidii u burburisay isbedelku wuxuu noqday in sagxada laga soo bilaabo waa la isbedelayaa siyaasaddu waa tartan qof walbana waxa uu ka tagay ayaa mustaqbal waxaan dadka dadweynaha kula dardaarmaya Boosaaso waxay ku jirtaa tartan ganacsi tartan horumareed tartan balaaran 3 jaamacadood 4 jaamacadood bay leedahay 1992 markaan imid Boosaaso sidee ahayd waa la ogaa maantana dadka ayaa horumarkan keenay macnuhu waxa weeye dadku inay ka fikiraan horumarka tartanka Boosaaso oo ah inay la tartanto dekadaha kale aeroboorka Boosaaso inuu la tartamo aeroboorada kale dalka dunidu way tartamaysaa marka reer Boosaaso waxa ka hareena dunida cid kasto timaadana waa inaad gaar ahaan golaha deegaanka annaga waana la magacaabaa laakiin golaha deegaanka idinka doortay duqa magaalada waa la doortay anigu dekreetan ku yimid agaasimaha guud dekreetu ku yimid laakiin idinka ayaa la idin doortay Boosaaso waxay u ekaan doontaa sida idinku ekaysiisaan taas mas'uuliyaddeeda gaarka ah waxaan ganacsatada iyo dadweynaha reer Boosaaso kula talinaya Boosaaso waa hooyadii Puntland Boosaaso in il gaar ah lagu eego siyaasiyiin ganacsato
shacab iyo qof kasta oo reer deegaanka Puntland waxaan ku soo gabagabeynayaa maanta waxay noo bilaabatay guushaasoo ah in xoolaha ka soo dega dekada Boosaaso ay ciriiriga ka baxaan transportation dekada Boosaaso waa dekada ugu fudud ee xagga dejinta marka la eego ma ahan inaan faaninayo waa dekada ugu fudud xagga wax dejinta dadka ganacsatada garan kara iminka hadaanu helo wada waxay noqon doontaa in ay ka sii fududaataan oo gaalkacanyo marka xooluhu ka degaan Boosaaso ay ku gaaraan si fudud waxaan idin rajaynayaa dhammaantiinba guud ahaan dadka Puntland iyo dadka reer Boosaasoodba xilli kala guur ayaa lagu jiraaya doorashaduna waxay noogu dhici doontaa si nabadgelyo ah askarigaas halka taagani wuu joogaya laakiin madaxda way isbedbedeshaa yaan macnaha loo qaadan isbedel musharaxiinta isbedelka ku celinaya in wax walba la xaaqayo cidii doonta inay wax walba xaaqdo oo isbedel ku samayso macnaheedu wuxuu noqonayaa inaan meel la gaarin. Assalaamu calaykum.